goobaha hurdada ee ugu halista badan ee dunida waa kuwa ay dad badani jecel yihiin inay dalxiisaan waxaana ka mid ah hodheelo aasaasay sanadkii 1989 oo hodheelka ugu horeeyay adduunka laga sameeyo barafa hodheelkani wuxuu ku yaalaa tuulada Jukiska ee dalka Sweden hurdada hodheelkana waa mid ka mid ah arrimaha ugu halista badan ee abita aad la kulmi lahayd waxaana sabab ah qolalka hodheelka heerkulka oo aad u hooseeya isagoo u dhaxeeya 5 ilaa 8 degrees centigrade maamulayaasha hodheelka waxa ay siiyaan dadka asixanaya dhar adag gacmo gashi kabo iyo waliba qalab kale oo martida loogu talagalay si ay u siyaana diirimaadsa haddii aanay qalabkaasi xidhan waxa suuragal ah in ay isla habeenkaasi ku dhintaan hodheelka dhexdiisa iyadoo ay sababeyso heerkulka hodheelka oo noqonaya mid aad u hooseeya waxa kale oo dalkaasi ku yaala hodheelka Sala Zilvermain waana hodheel ogolaanaya martida inay seexdaan 155 mitir dhulka hoostiisa oo loogu talagalay 2 qof xarunta hodheelka laga sameeyay waxa ay ahayd goob laga qodo macdanta silverka qarnigii 15aad ilaa 1905 martida seexata hodheelka waxa ay daawan karaan isla markaana warbixin iyo qoraallo ka sameeysan karaan goobta hodheelkan laakiin waa in ay la qabsadaan xaaladaha cimilada iyo heerkulka maxaa yeelay waa goob qabow iyo qoyaanka oo ay aad ugu badan yihiin